wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in wakiilka gaarka ah qaramada midoobay Danjare James Iswaan uu fariin gaar ah soo gaarsiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi. wasaaradda ayaa warkani ku sheegtay warbixinta toddobaadlaha ah ee loo yaqaano Week in the Horn oo ay soo saarto maalin kasta oo Jimco ah. waxaanay sheegtay in James Iswaan oo 10kii bishani January booqasho ku yimid Somaliland uu madaxweynaha u sheegay fariin sheegaysa in qaramada midoobay ay taageerayso hindise ujeedadiisu ay tahay in kalsooni laga dhex abuuro labada geesood ee Somaliland iyo Soomaaliya, isla markaasna ay dhiirigelinayso wada hadalladii u dhaxeeyay labada dhinac. warbixin wasaaraddu kaga warramaysay xaaladihii u dambeeyay gobolka Geeska Afrika ayaa waxa ay ku sheegtay in ergeyga gaarka ah qaramada midoobay oo sida oo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gaarsiiyay in qaramada midoobay ay soo dhaweynayso hindisayaashaasi lagu dhisayo kalsoonida labada dhinac iyo wada hadallo ay bilaabaan Hargeysa iyo Muqdisho. wakiilka gaarka ah qaramada midoobay ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray intii uu ku sugnaa magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay isla arrintan, laakiin tafaasiil kama uu bixin hindisayaasha wada hadallada cidda wadata iyo waqti cayiman oo la filan kara inay bilowdaan. sida oo kale ma uu sheegin qaramada midoobay ay iyadu wada hadallada dambe maamuli doonto iyo in kale.